ardayahay dadaalo dugsiyada waxbarashada u dareera oo taga hakadaahimina hakadaahin weliga ardayahay dadaalo dugsiyada waxbarashada u dareera oo taga hakadaahimina hakadaahin weliga dhalinyarada si guud ahaan degmada Awdheegle caruurta yaryar runtii ubax dalka ah ee u baahan in mustaqbalkooda la dhiso maanta aan u joogno halkaan inaan daafurno iskuulkii 2 sano bar ka hor halkaan aan ka dhisnay ee laga hirgeliyay oo ay ahayd inay wax ka bartaan oo aan furmin in maanta aan dib ugu furno waxaan rabaa inaan u mahadceliyo marka hore ciidamada shaqo xoog leh ka qabtay deegaanka Awdheegle ee degmada Awdheegle iyo nawaaxigeeda deegaanada hoos yimaada degmadan markii laga xoreeyay cadowgan runtii juhdi badan ay ciidamada ku bixiyeen maamulkana waxay keeneen adeegyadii bulshada ayadoo la isku duubay maanta waxaan u maleynayaa inay ka soo wareegatay muddo 3 sano markii Awdheegle laga dulqaaday cadowga al-shabaab meelahan hadda xarumaha danta guud ee dawladda ay ka dhistayna waxay ahayd meel ummadda lagu dhibaateeyo baad looga qaado lagu rafaadiyo xaq aan ayaga lagu lahayn runtii looga qaado oo lagu dulmay ahaan jirtay waan u mahadcelinaynaa ciidamada waxaan u mahadcelinaynaa maamulka waxaan u mahadcelinaynaa shacabka oo runtii oo garab istaagay ciidamada inay ka guuleystaan cadowgan waxaan naga go'an degmadan mashaariicdii hore looga fuliyeyna inay shaqeeyaan bulshada looga faa'iideeyo oo ugu horeeyo iskuulkan maanta aan dhex taagannahay ardaydan ku dhowaadka 1000 qof ku dhow oo dhammaantood da'dii waxbarashada ku jira in runtii dawladdu ay damaanad qaaday waxbarasho bilaasha inay helaan oo halkaan ay ku helaan agabkii waxbarashada loo keeno macallimiinta xuquuqdooda ay dawladda ay siiso sanadaha hadda soo socdana insha Allah taala ka maamul ahaan waxaan rabnaa inaan aragno arday wax ku bartay degmada Awdheegle oo diyaar u ah inay imtixaan u galaan si ay shahaadooyin u helaan horeyna ay ugu sii socdaan waxbarashadooda heer jaamacadeed ay u gaaraan dawladda waxaa ka go'an ayadoo heer federaal iyo heer state isku duuban inaan xaqiijino ammaanka dadka gobolkan ku nool si guud ahaan si gaar ahaana shacabka degmada Awdheegle oo muujiyay runtii dawlad jacayl isku xirnaan iyo geesinimo dheeriya muujiyay in annagana aan u keenno wax allaala wixii baahiyahooda ka dhiman waxaan idin ballan qaadaynaa inaan garabkiina aan taagannahay annagoo isku duuban dawlad ahaan iyo maamul ahaan